halkeedii warkaasi kala socotaan waa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland stuudiyaha aanu ku leenahay magaalada Hargeysa. Xukuumadda Nairobi ayaa sheegtay inay xayiraadii ka qaaday warbaahinta dadweynaha sida YouTube iyo waliba Facebook kadib markii ay ka dhaceen caasimadda dalkaasi ee Katamada dibadbaxyo xoogan oo galaaftay ilaa 19 qof. Tiro kale ayaa iyaguna ku dhaawacmay dibadbaxyadaasi. Dalkani waxa ay ku dhinteen ama ay u dhaawacmeen kadib markii ciidamada booliiska xoog dheeraad ah u adeegsadeen. Hase ahaatee ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa xaaladda dejiyay kadib markii uu ogolaaday dadweynaha dalkaasi fasax u yihiin adeegsiga social media sida YouTube iyo waliba Facebook. Isticmaalka ra'iisul wasaaraha wadankaasi ayaa ku dhawaaqay in la sii deyn doono ama la fasaxi doono dhammaan dadkii loo qabsaday kiisaskaasi. Sidoo kalena la siin doono mag eheladii dadkii ku dhintay dibadbaxyada ama ku dhaawacmay. Halka uu sheegay in xilka laga qaaday wasiirka arrimaha gudaha ee wadankaasi. Xukuumadda wadanka Itoobiya ayaa maanta si rasmi ah u furtay biyo xidheenka ugu weyn Afrika oo ay ka samaysay Niilka Buluuga ee maradalkeeda, iyadoo lagu qiyaasay inay ku baxday lacag dhan ilaa $5 milyan isla markaasina dhismihiisu socday 14 sano ee la soo dhaafay. Ra'iisul wasaaraha wadankaasi Itoobiya Mr. Abiy Ahmed ay wehelinayaan madax ka socota Afrika iyo caalamka ayaa maanta ka qayb galay xaflad lagu furayo biyo xidheen, iyadoo lagu tilmaamay guul taariikhi oo soo hoyatay shacabka Itoobiya. Hasaatee xukuumadda wadanka Masar ayaa dhaleecayn u soo jeedisay furitaanka biyo xidheenka kuna tilmaamtay biyaha saamiga ku lahayd oo ay weeyayso, iyadoo nolosha 70% shacabka reer Masar ay ku tiirsan yihiin biyaha webiga Niilka.